إنان حدان حكومة سديد السنة لو حكومة ما قالين ما يالينه هديك ربك على ناس صادقة وحي سمايين ركب بعد العلا ما يحدين ركب بعد الدعاء ما يحدين ركب بعد الدلالة ما يحدين sababta iyaga lagu xidhay xukunka noocaas lagu xidhay soo garxasnimo maaha aan ka shirayna nimankana horaanteedii weeyaan dabayaaqadeedana way idin arki doontaa waxa tirdalaysan dollar yana ku shaqeeyay Soomaaliya ku shaqeeyay maxkamadda waxaad ku xukumaysaa dollar horta dalaftaagii lama aadan dhiguna xukumaa laakiin waxaanu dadka gale lagu xukumay ayuu ka hadlaya shicibku dawladdu waxay dawlad ku tahay rukun ku leedahay waa shicibka hadii la walaaqo xumaan u baa looga dhacaya maalintay dawladdu wax doonayso shicibka way u baahan tahay maalintay iyadu godobaysan tahayna shicibka waxba kuma farayso waxaanu dawladaha ka codsanay oo nu hay'adaha ka codsanay labada inaan ee xaq darrada lagu xukumay xuquuqa islaamka hay'adaha waxaanu ka codsanay in inamada hoos loo eego in dambi samaynin lacagtii kaambayga lagu galay inamada laga daydayayo ma qaadi karaan xiradoodana kuma jirto xira xigaalkoodana kuma jirto hal laga daayaan haddaanu nahay cudud garxajis taasaanu ka codsanayna oo waxba naloo qabanahay oo hoos naloo eegahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين halkan waxaanu ka hadlaynaa inamada la xidhay ee wax lagu xidhay jirin ee aan cidilin aan cidicin ee wax lagu xidhay jiro ee kalaam hadal ay afka ka yiraahdeen lagu xidhay ee haddana lagu xukumay waxaan laba goyn karahayn rag bay ka badan tahay lacagta lagu xukumay waxay sameeyeen ma jirto hadal hadii dadka lagu xidhayo miyaa la caburinaya oo mar waxa la iska qabanaya afka la iska qabanaya oo hadalka la isu diidaya qofku wuxuu doonaa buu oranaya ee aan ku jeedin dawladda ceebna u lahayn qofku wuu qabaya waa la xidhaya qofku wuu hadlaya waa la xidhaya maxaa dhacay يا محمد موجي وسكرر بعد السلام وحلاي لبدا إننا حرن معلنك iyo abwaanka waxa loo sheegtay xiliyada nasiib darro waan ka xumahay ragga ay la dhashay shay wax ka eegaya garxajisadu ku lama maareeyo ma waxa laga deedeeyaa lacagta xusbiga ku baxday inaa siciid ma meel kale ka qaato kara waa maad musadiraad wixii taxigta lacagta xunba weyna ku baxday wadagtay Muuse cidii cuntay tay ka baadi doon biyaa la idin soo galinayaa baa tilwalina way maqan tahay taasina waa taasoo inamadana laga baaraya inama aan waxba haysan oo xaasasa oo guryahoodii degan ayaad ku xidhay shaali baa tiri te shaali Muuse cidii ku bixisay waad garanaysaa waxa weeyaan shaali imaka laguma bixin taariikhda yar ee socota saacadii lagu bixiyo waa midda kale miyaadi lowday ragii ku codeynayay ayna Muuse codsi mayno shaani codsi mayno waan ka xumahay Muuse waxa ku sheegaya laguma meeraysta aruuraha iyo ubadka iyo hebel soo xid halkan waxa jirtay maxamed mooge rag la xaadlayna xidhatay way saacadan ku xidhan yihiin oo saa ku eegayno magaalada anagu dawladana matalin waanayna qusaynin ragayga waxaan u sheegaynaa adduunka caalamka waxaan leenahay xuquuqda islaamka hanoo kaco weeyaan qof walba naanays ku leeyahay ima kaadi inta soo qof wala magaca qof walba naanays baa loo bixiyaa asa ku sheegaya oo aan ku leeyahay oo caawa ku leeyahay oo bari ku leeyahay caalamka oo dhan baan u sheegaynaa inaad inamada malyan ku xukuntay iyo dheeraad oo ku xukuntay maxay 600 iyo 25,000 oo dollarka Mareykanka waxa tirdalaysan dollar yana ku shaqeeyay Soomaaliya ku shaqeeyay maxkamadda waxaad ku xukumaysaa dollar horta dalaftaagii lama aadan dhiguna xukumaa bas waa marka xigta waxa weeyaan waxaan ku sheegayaa kale oo aan ku xasuusinayaa Muuse dadkan aad balowsanaysaad leedahay marna abtibaayiti waa barnaamij wafdood iyaga ku qabanay miyaana lowday wala caba markiisa maxaa ku yeelay sila lowday ilaahay baa mahad iskale mar hadaanu maanta isku soo baxnay halkan uguna soo baxnay labadaynan ee waxaan ku guri wadankii ay u dhasheen jooga ee wadan shisheeyo joogin ee maanta waxa naga wareeriyay ama madaxayaga uu qaadi waayay lagu xukumay aad iyo aad ayaan uga xunahay dawladda imika dhisan ee maxay hayday kulmiye maamulayo horaba kulmiye xilka uu soo maray tuumaanta nagu hayana hore nagu muuqabanin aga jugleyn baa la nagu hayaa caburin baa la nagu hayaa dib baa la nagu hayaa xiriiri baanu tirsanaynaa xarig baanu tirsanaynaa annaga wixii maxkamadda naga gala lanooma qabto laakiin wixii
dadweynaha kale maxkamadda ka soo gala degdeg baa loo xukumaa annagu dhaliishaanu tirsannay ee aanu dadka dheernahay maxay daadaanay garxajis waa kow waa talabaad waa goodeen baa leediinay ma abaalmarin baa nooga dhigaysaan inaad maalin walbana xidhaan wixii hore aan uga go'nay eenu hore uga tagnay ayaad imikana nagu wadaan dabayaaqaduna way ka daba tegaysaa dumarkii iyo carruurtu iskuulladaannu ka tegaynaa waxbarashooyinkaannu ka tegaynaa jaamacadahaannu ka tegaynaa caafimaadkaannu ka tegaynaa shaqadaannu ka tegaynaa xaquuqdaydaan dhaxsannaa xaquuqda ayaannu dhaxsanaynaa annugu aan nigu leenay mar hadday odayaashaydii gabeen oy ka hadli waayeen xaqaanu lahayn dumarkaa dhaxsanaya horaa u lahaydeen waa la tegaya haddaa la tegayaa labadaynan ee xidhan ee xukunka 8 sano lagu xukumay ma ogelin ma yeelayno haddii kala bankaa la noo soo dhigo waxa ay sameeyeen rag baa dhul cunoo lama xidhin rag baa dad dhacoo lama xidhin rag baa dad diloo lama xidhin sababta iyaga lagu xidhay ee xukunka noocaas loogu xidhay soo garxasisnimo maaha waanu ka shiraynaa imakana horaanteedii weeyaan dabayaaqadeedana waa idin arki doontaa waxa la yidhi biyo walba waa li biyo urowra meel badan bay iskugu tagaan garxasis wuxuu yahayna kuntaa soo taabanaysa haddaa sheekhyadii xidheen oo wadaadada islaamka ah ee islaamka fidinaya diinta islaamka inta jeelada ku rideen marka dambana meydadkoodii laga soo jiidayo uma adkaysan doono kuwiina xidha kuwiina xabsiyada u dira laakiin annaga kuwayaga ma yeelin hore haddaanu u yeelnay maya hore haddaanu u yeelimayno barakaatu waxaan la hadlayaa dawladda uu madaxweynaha ka yahay muuse biixi shalay toole ina abees baa ka gabiyey hargeysa dhexdeeda waad xidho 7 cishuu xidhnaa shirkii boorame waa adigii isagoo friya intuu yimi aad hambaliyaysay annaka abwaanadayada namada yarare macallimiintii waxay sameeyeen muusow waad ka warramaya xukuumad waxay ugu ridda xukunka lacagta ay 8 sano xadhig mabay mutaysan in la xidho ma macallin baa mutaysan in la xidho ma abaan baa mutaysan in la xidho maxaa abees loo xidhi waaye maxaad guriga waaqo oo hooyada intay ku jirto caayay maxaad u xidhi weyday xalay 12 baad ka dhigtay la taliyahaaga waa noo sheegtay muuse halkaad noogu jirto haddaan garxadsisnay ee wixii ka dhaca dee cid yaan layska annagu muuse weligayo maanaan arag adigoo madaxweyne rag intay haweenkiis ciida galoweyne caayay darajooyin lagu siiyo in xilka lagaga dhiga mooyaane